استوديوها labaad oo sugan Caasha Caagan iyo Maxamed ku soo dhawaada barnaamijka Caasha iyo Maxamed aad ma hasantahay Farxaan Cali ciid wanaagsan ciid la mid ah aad ma hasantahay Farxaan ciid wanaagsan dhamaan dhageystayaasha adigaba وتحيي dhageystayaal idilkiinba waxaan idin leenahay galab wanaagsan barnaamijkan gaarka ah ciidan ugu talagalnay iyo saaxiibadeena siin doona fursad ugu badan si ay uga qayb qaataan dhanka qadadka telefoonada Facebook-na si toos ah ay nooga daawanayaan Maxamed ciid wanaagsan galab wanaagsan waxaan Caasho kulay maalin aad u weyn ka muuqataa ciida aniga waa diyaarsanahay maanta كلي مرقاتي waxaa ku filan saaxiibadana daawanayo oo marqaati ka ah markaasi inaad maanta ciidayso maanta waa ciidaysaa anigu dharkayga hore iska soo dhaqdaan khamiiska hore soo dhaqdaa gooye kuwa hore kala sharafta ku jirtaa liiday waa mahadsan tahay dhageystayaal Star FM ayu barnaamijka idin kaga imaanaya barnaamijka ayaynu guda gari doonaa saaxiibo badan ayaynu siin doonaa si ay fursad uga faa'iideystaan eber 7 eber 2 3 5 eber eber 9 eber ama eber 7 8 eber 1 eber 5 1 eber 5 ayaa si toos ah u soo beegsan kartaa si aad barnaamijka qayb uga noqoto mar kale ciid wanaagsan ayaynu idin leenahay saaxiibayaal وحقاك إن قدرتك تلفون محمد وهدي أتكقبته الله كوجو رأي مركزي دقيستها كجرا سوى سوى برامجك قيب وقنقضو Hello Star FM يوحنا هاي ما أنت تلفوننا ما أنت هذه القدرتك ده هلاوان ما أنت أنا وحنا هاي واتهاي إن واحد مدة دقيستها إنه قدك كجواي مركل أيو صون قندونا نبضك صون قاين ولنا هاي إن ميلا بدنو كم ده إن adduunka maanta waa laga ciiday haddii aan ka wareysto waa laga yaabaa maanta inaad meel kusoo tukatay oo aad la ciiday asxaabtaada iyo qoyskiyaada bal halkeed ku tukatay salaada ciida ani maanta waxaan ku tukatay saacali clubs waxaana salaada natijiyey sheekhayna allaha barakeeyo sheekh maxamed umal aad iyo aad u wacneed buuqmaysan jirin sidoo kale muslimiinta hogaamiyaasha muslimiinta waxay noo soo diyaariyeen masaajida hore aan u waaran ambulance iyo shaqaale aad iyo aad loo soo tababaray si ay muslimiintu u caawiyaan meesha aan joogay maanta anigoo dhumay xitaa ma maqlin waa tahay waxaad leedahay ciidihii hore way ka duwaneed ciidan oo aad baa la isku diyaariyey tada kala xoogo khilaaf yarna wuu jiray hogaamiyaha aqlibada baarlamaanka ee aadan barre ducaale aalan xildhibaanka ee gaarisa township ayaa isagana wuxuu lahaa maanta ciid ma noqonaysa beriya noqonaysa qaaligana sidoo kale isdalmar ayaa jiray maanta laakiin sidaan filayna 90% kiyaanka maanta way wada ciideen oo saameyntaasi kuma aysan yeelan waad mahadsan tahay Facebook sida tooska inooga daawanaysa saaxiibada fariimo fara badan ay soo gaarsiinayaan waxaan jecelnahay inaan durbaba ka gaarsiino maadaama qoraalka uu hore u cararayo sida ka muuqato anigoo waxaan joogaa xaafadda Isli ayuu leeyahay waana Sakariye Shariif halkan waxaan ka salaamayaa ayuu leeyahay asxaabaan jeclahay Caaisha Maxamed waan salaam sare farxad wanaagsan aniga ayaa markaasi idinku salaamaya ayuu leeyahay waxaa kamid ah sidoo kale saaxiibada kale iyagoo barnaamijka ka qayb qaadanaya Farxaan Maxamed yam wuxuu leeyahay waad mahadsantihiin amaantaadana waad ku mahadsantahay adiguna sida quruxda badan barnaamijka uga qayb qaadatay ayuu leenahay hay Caasho maanta waxaa jiro cudurkii iyo xoolaha galay loo yaqaano Rift Valley viruska ayaa waxaa kaloo saameeyey countiga Kilifi ee gobolkaasi qaybta waxaan arkayna maanta in xoolo dhan la qalin maanta haddii gobolkaas aad ku suganaan lahayd maanta maxaad samayn lahayd adigu inkastoo hilibka isma fiicnin anigu awal horena isku fiicneen baa haddana ood laga saaray marka dadka biraha ilkaha ku xirto
hilibka saa'id uma cunaan oo dhakhtarkaaba ka mamnuucayo dhakhtarka hore inta kaa mamnuucin ka hore ilkahaaga biro kumaada xiran sooma laakiin hilibka waaga waa cuni jirtay waagaasna aligeeda laga yaaba in biraa lagu xiraa lagu leeyahay caasha hilibka ka har maya ilkahaya kaasii jajabina way sii jecleen hilibka waxaan jeclahay haddii suurtagal tahay hadduu jilicsan yahay waa cuni karaa laakiin maanta oo kale hilib waa la cunaa ama jeclaa aniga haddii aan ku sugnaan lahaa ismaamulkaas shalay ama darad ayaan soo safri lahaa dad badanoo waxaan arkayay social mediaha kusoo qoraya asxaab aynu nahay 3 kiilo beer ah keliya diyaaraddan loo soo saaro 3 kiilo waxbii ma darleene hal fadhi ana caasho adis meeqa kiilo cuna laad hilibka maanta maadaama dadka ciidda hilibka ay jecel yihiin waxaan arkaya waxyaabo kale iyaguna laga sameeyey shactiro oo kale dad baa saxan hilib ku jira camal dabool inta lasoo saaro loo keena markay fariisteen daboolka laga qaado mas baa ku jiro waa la kala cararay sheenaha maska laga cunaay muslimiinta sheeno ku sugan laga yaabaa maanta wankooda inuu ahaa masaska ugu weynaa sida kobraha iyo waad mahadsan tahay saaxiibo badan barnaamijka ka qayb qaadanaya siin doonaa kaalintooda hello Star FM hello asalaamu calaykum وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قلب وناكسن عيد وناكسن مقعاقي هالكا جوكتو ياسمين هواسينان جوغا ياسمين عيد وناكسن هواسينان سيدي لوغي عيدي مانتا ما شاء الله سيدوك العيد نمسي عنا يا لوغي عيدي هاي يا سلام يسا وهم بريد عيد هوضو مرينيسا وحا سلام يا مسلمين تنمان تود مالك السي جوغان وحان كلام سلام يا بحضي استايسي بايضا waa gartay waanu kaa guddoon anaga wakiilka ah salaantaada mid qurux badan ayaan kuugu bedelnay waxaan salaamay ehelkeyga qaraawadayda hooyaday macaan adna waan ku salaamaya intaas ayaan kusoo gabagabeynaya salaanta waa tahay yasmiin waa mahadsan tahay oo sida quruxda badan barnaamijka uga qayb qaadatay facebooka Star FM si toosa ayaad barnaamijka uga daawanaysaan oo aad uga qayb qaadan kartaa qaybta sida tooska daawashada ah boggaan Facebook ku leenahay waa Star FM haddii aadan ka mid ahayn saaxiibada hadda ka mid noqo iskana hubin uu yahay beejka saxda idaacadda in ku dhow 50,000 ayaa inala ah saaxiibo adiguna inala noqo si aad wax badan ula socoto oo ku saabsan idaacadda iyo wararkaba iyo macluumaadka la xiriira waxyaabaha adigu aad jeceshahay maxamed Umar kale ciid wanaagsan ayaan ku leeyahay horta maxaa inta badan markaad eegto ciida oo kala marka banaanka la isugu soo baxo oo dadku ay markaasi ciidayaan indhaha waxay qabanayaan quruxdii iyo jawigii sida uu noqday dadka maasha Allah farxad wajigooda ka muuqato waxaad dareemaysaa reerin aad u qurux badan sidoo kale waxaa qalbigaada ku soo dhacaya mar walba sidan ma iska ahaato sida qamiiska waxyaabaha ugu badan ee rag ku labisanayeen oo ay ku ciidanayeen qamiiska kamid ah aad aan ugu farxays sanadada dambe waxaan arki jiray waagi hore xitaa anaga waagan yare dhalin markaan yar waxaan arki jiray jeans ama surwaal kala ama dharka labis kala ayaan u weyn jirnay hadda waagan dambe waxaan aragnaa masaajid inay qamiisyo wada cad yihiin ama ha madoowadaan ama ha cadaadaan oo kala duwan leh qaar go'yaasha oo caalamiga la aqaaniyo dhaqanka hore shaalkii quruxda maanta waxaa kale aad iga farxiyo dadka familka la hooyay aabi caruurtii gacmaha haystaan aad ayaga u faraxsan ciidi waaga hore waxaa la arki jiray hooyo kaligeed caruurtii wado hadda waxaa la arki jiray waaga hore in baabuurtii lagu soo xarin jiray goobaha lagu tukanayo hadda laakiin security aad u adkaa gaaridii bakinka banaanka ayaa lasoo dhigaya teeda kale caruurtii masaajidka markay kasoo baxaan ay salaada soo tugtaan hooyadii ayadoo meel fog aadin ay meeshii goobta isla goobtay ku ciyaareen caruurtii geelka faraska meel lagu boodboodo marka ciyaalka aad iyo aad u faraxsanayna maanta dhalinyartana sidoo kale aad iyo aad aad u mahadsan tahay goor dhow 3 galabnimo markay soo istaagto warkii saacadda ayaa fooda inagu soo haya saaxiibo badan oo iyagu barnaamijka ka qayb qaadanaya inuu siin doonaa si ay iyaguna markaasi عليكم السلام ورحمة الله وبركاته قلب وناكسن ومقعاقي هالكاس جوكتو عيد وناكسن ما أنكو راعيو وناكسن وعن عايشة عقني عيد وناكسن هاي سورو مقعاقي هالكاس جوكتو مقعي قواحاني يوم من ديرك أصوعيسة هاني من ديرك سيدي لوغ عيدي آدبان بوسو دوينيا ما شاء الله من ديرك في عنا لوغ عيدي هيلك سفي عنا لوعني إلا هذا وحما قدم بيان محمد باهيلي بكادو جعله waxaa guluudooda farada lagu soo diray
oo hadda casrigaasaba la gaara bluetooth ma aha haliyey waxaad ii soo saari kartaa diyaaradda birito xitaa waa ciid haddii aad nala jeclaatay intaad joog yar noogu soo shubtid waa noo soo diri kartaa aniga caasha ayada xitaa iska saaran meesha ila jirtaa yaad halkan ka salaami lahayd haliyey waxaan salaamaya muslimiinta meel guud joogaan waxaan leeyahay ciid wanaagsan faamiligiisana ciid wanaagsan khaasatan star fm ba wariyaasheedan waxaan leeyahay ciid wanaagsan kulla caamin wa antum bikayr maasha allah anaguna waxaan ku leenahay ciid wanaagsan dhegeystayaal warka kadib ayaan isku soo noqon doonaa idilkiinba waxaan idin leenahay ciid wanaagsan
waa hagaag isku soo noqod wanaagsan dhegeystayaal meel walba aad joogtaan waxaad degeysanaysaan Star FM codka gobolka waqooyi bari waxaan ku jirnaa weli salaamaha iyo maalinta ciid wanaagsan dhegeystayaal idin leenahay cashay ciid wanaagsan ayaynu leenahay saaxiibada barnaamijka ka qayb qaadanaya intaynu qaybihii dhegeystayaasha aynu siinin iyo fursadooda salaanta ciid waxaan jeclahay qadar adeega barnaamijka inaan soo qabto shirkadda isgaarsiinta Safaricom ayaa doonaysa inay macaamiisheeda abaalmariso maadaama ay adeegsadaan hanaanka lacagaha la isugu diro ee M-Pesa ku dir lacag ama ha lagu soo diro M-Pesa kadib guuleyso oo hel abaalmarino kala duwan waxaa jiro abaalmarinta ugu weyn oo ah guri 2 qol ah oo ku yaala magaalada Nairobi maishan M-Pesa waxay kaloo meesha markaasi ka marneen abaalmarino kale oo macaamiisha loogu talagalay qof walba waa guuleystay oo marka uu markaasi adeegsado M-Pesa waa guuleystay waxaa lagu guuleysanayaa guri iyo markaasi ugu talagashay shirkadda isgaarsiinta Safaricom magaalada Nairobi ku yaalo maishan M-Pesa noloshu waa M-Pesa qof walbana waa guuleystay maantaba ku dir lacag M-Pesa adigana ha lagugu soo diro ku bixi biilka M-Pesa sidoo korontada biyaha supermarketka iyo wixii la mid ah sidoo kale ku soo xawilo bangigaada oo ku xawilo M-Pesa bal ka waran adigoo guriga jooga haddaad iibsato caanihii geela oo aad shaaha aad ku candaysan lahayd ama aad adigu cabi lahayd dhageyste ha ka walwalin haddaad lacag gacanta ku haynin waxaa kuu joogta M-Pesa maisha M-Pesa noloshu waa M-Pesa qof walbana waa guuleyste qadarkaas adeega barnaamijka intaas maxamed waan ugu gudubnay dhegeystayaal fara badan ayaad moodaa in qadadka taleefanada iyo facebookaba ay fariimo kala gedisan inagu soo gaarsiinayaan hambalyada ciidda iyadoo saaxiibadooda ay u marinayaan salaamaha kala gedisan waxaan jeclahay dhegeystahan inaan soo qabto waxa uu leeyahay ciid wanaagsan muuse oo jooga Mombasa waxaan halkan ka salaamayaa waalidiinteyda iyo walaalahayga dhammaan bulshada muslimiintana waan salaamayaa ayuu leeyahay waxaa ka mid ah dadka kale ee salaamaha ka qayb qaadanaya oo isaguna soo gudbiyay salaantiisa waxa uu leeyahay ciid wanaagsan dhageystahani Hamza oo jooga waxa uu leeyahay Nairobi jooga wuxuu salaamayaa hooyadiis macaan Abdiya iyo dhammaan muslimiinta meel walba ay ku sugan yihiin haddii aad soo raacayso dhegeystayaasha kale Facebook fariimaha wuxuu leeyahay dhegeystahan assalaamu calaykum daadiyaasha barnaamijka Maxamed iyo Caasha waxaan salaamayo leeyahay dhammaan ummadda Soomaaliyeed ciid wanaagsan ayaan leeyahay waa Maxamed Shaakir Ibrahim oo joogo Lopito Angola ma sha Allah magacaas dhegeystaha xigan wuxuu leeyahay assalaamu calaykum magacaygu waa Xasan Suleymaan oo joogo magaalada Wajeer waxaan halkan ugu hambalyeynaa dhammaan muslimiinta meel kasta oo dunida ka joogaan waxaan leeyahay ciid mubaarak ayuu leeyahay asana caashooy aniga hal su'aal ayaan wataa su'aal muu wati laakiin waxaan rabaa xoogaho yar inaad wax ijishaa rabaa waa gartay jiliyar inaad noo samayso maanta haye maanta guriga maanta anigaa joogay adiga shaqaad ku maqaneed waa gartay guriga markaad imaatay aniga hilibkii guriga wax yaalan aniga cunay isku dardarsaday waa gartay marka waxaan noo jisdaa adigoo hilibka usoo dhaarsanaa anigoo kaa laqay hilibkoo dhan sideed xanaaqaaga maxaad dhihi lahayd adigoo xanaaqsan micnaha adigoo xanaaqsan soo kulaynayaa laga rabaa maanta laga yaabaa 100% iyo 50 wax la jiro intaas maanta dhe maxaad hilibkayga dhamaysbo ayuu khaylaa guriga inay soo galeen ayagoo bannaan ku maqan warheedhe maxamed maxaa ku dhacay waa taa hilibkii oo dhan wada cuntay oo maxaa kanigama hilibka lagu reebay soo anigu inaad wax iga reebta bay ahayn ma xanaaqsideed saamila dadka la weydiinaya inaa xanaaqsan iyo kale caasho dhegeystayaasha teleefanada qadka teleefanada ku jira hello Star FM hello Star FM hello Star FM waxaan mudaa qadka teleefanada aad iyo aad cariir u yeeshay maxamed oo anoo ku xanaaqsanahay aad baan kuugu xanaaqsanahay waa taasa iga soo garbixi doontaa ee dhegeystaha xiga haddaan siiyo hello salaamu calaykum hello Star FM hello Star FM aada uga xunnahay saaxiibada qadadka teleefanada aad bay u fara badan yihiin wacalaykum salaam ciid wanaagsan galab wanaagsan soo dhawow cabbe qorone aad baan kuu soo dhaweynaya barnaamijka waad dhegeysanaysay
كل عام وأنتم بخير أنا قلنا سيدوك الهيو سقاسة عبي قرني مركي عيد تهاي سلامة وحلقية وميلا بدنا سلامة برون قدر سطو وضدك السلامتان ما دام ما أنت عيد أي تهاي سقاسة قفدو سلامة سؤال عيد ونكسن كل هاي سوما جرتا هاي كله مرة لبدي ديال بين كله مرة بيا مجد بالأسحاب في دقاني عيال أبي سلامي بوله دقاني ناصر دقاني إبراهيم إبراهيم جمعالي مولد أفضل عبد الرحمن جمعالي كم صارح برا إنجيل رحل فوقي لا يبدأ أرسل كل سرون من الشيخ عبدي يا أم عبد الرحمن حسين داوود حسين سيف سالم كمال سيف يا حاكم وهلكان أمبري أن أبي سيسو سرنا إنت كتاب الدنيا يا سيدنا جيرولة رحمن سلام سرعين لجلب ونفسه بني سلام يا أبي بديا برنامج عشرة عبي قرن ومحصنت وأنا كأقول دون سلامتها من اللي بدأ يقودرنا فيسبوك وسقصد بدعيا فريمها كل قد سنة غير تقييمها بدل النص ودريا وحليه صادق محمد أوتشوغا البركو مقدشة وحوس هم باليضة بالشدة الصومالية ومرنا يا عيدة سقاسنا وحان والسلام يا صاحبة الفيسبوك فريندس كان كنا هاي ولا هاي يسوع كلا قرابة ديسا وما سين صاحب كاسي مجلس وعبد الرزاق وجوجا مقالة مقدشة وحنا دمان وهم مليانة مسلمين تا إن مانت عيد إن مبارك حاجي يا كم ضدك سلامة العيد هو أمرنا دمان مسلمين عيد مبارك أيوة ليه عبديلي مختار يا كم زينب يا كم دمان وحنا عيد مبارك أيقنا عشوي ما تعذق جت قصة وسلامة سقاسة ها لستي قاعد بديري هاي لكن صوت القابي سقاس مركو لي أنا عمل حجين يقول هذا وبدي ساي لكن أنا حكوا لي حتى لستي صدق أفروض كريه كرتا ها لا حتى ودقرين كرتا قف كي سقاسة وحاجر قف عن سقاسة وسلامة بيجا سبيشال كا وأنا أدو تعال هاي وأن مكاسي لي هاي تعال أدو مقوين عن قبها كانوا يسوقوا بكرين قف كاس وقف يقول قاليه قف كاس وقف عن جعل هاي قيرت دباك شيء جاية أوكي أنا قال كم حنك السلامة ما تدي أفرس دايسيس لو دي والد والسلامة يا ما شاء الله ولا له هيجا مسلمين تمام والسلامة يا فملكيجا أصحاب جيدا وحن هل كان كسلامة أيدي حليمة إبراهيم حسين عفينا حلقة أنت راضي أكتر كويس أوكي وحلا عيد ونكسن عيد ونكسن أي أنا جالس قاسم كل سلامة عيد مبارك هاي فوزية لمان ولك يا عبديلي لمان أصحابه والسلامة يا واقرتي مكاني واو سوكو به أدنى وحاول أعطيك قلال أيام كسلامة الدولة عدو حي ترقف قاس أنا يا سلامة صدق ريلي لون تحيل هاي محد يدي ويسها مايا أنا واقول شيء صدق أفر وقاس وصلنا سكر تفيد أم هذا بس خاص كديبا وديجانا يا إن مركو روح عن عيد ونكسن لي هاي أبيه معان حسين عاجني يصيدوا كل هويدي معان قديش إبراهيم محمد هويدي نور إبراهيم رمان صاحب بضا ولا له ولا شيء ذا نجعل هاي ديقو يصيدوا كل ولا شيء السعودي ولا له قاعد فتاح إسماعيل رمان فمليين دم وكان يكون صغن وحلي عيد مبارك sidoo kale waxaan salaan qaas u dirayaa oo hawada u marinayaa ciid wanaagsan aan leeyahay gabar walaashay ah oo aad u jecelahay iyaduna markaasi ku sugan cariga ay Mareykanka Safiya Maxamuud saaxiibtii qaali oo aad u jecelahay waxaan leeyahay ciid mubaarak kullu caam wa antum bikhayr kullu way daawan doontaa dhanka Facebook-ga dhageysigana sidoo kale waxaan kaloo salaamayaa inta Soomaaliga ku hadasha oo magacayga iyo muuqaalkayga taqaano anigoo Caaisha Caagana waxaan leeyahay ciid wanaagsan farsamayaqaankan waan salaamayaa asagoo salaam buu iga sugayaan Yusuf listigiisu dheeryahay laakiin asagana waa uu soo gudbin doona dhankiisa salaamaha waraqada fara badan oo diyaarsanayna u jeeda kuna Yusuf qalin guduud inaad ku qortid waa qofka kuwa khaas aniga waan ku su'aali doonaa marka insha Allah يوسف وياك هلكا كسلاميسا هدي أفرصت أكو سينا عاشا لما ترتو ما سنتين أذيقيو محمد أصحاب ظن أيان سلام يا بلسه ولو سكوت تلقيني ما أنت إنا الله بلسه وادو قصبتين فرها يا إيه تاكتينو أنكو قصبنا هنا الله ما أنتو كلا لما أموس يوسفو أنت والله هذا وحا كاقدرن وحا لغا يابا إن هيلبكي أتصابت ستعنستيسي هذا الكان وحا سيادة إني يعني كاكلا يراتو
Coca-Cola uu ku noqdo hadhow sidaad kistiga ku harto maxamed iyo caash horta waxaan jeclahay moogtahay amstaanka aad iskaga jeclahay inaan iska aamuso mar walbo laakiin marar qaar waxaa la moogtahay amstaanka xitaa macnaa leeda isma ogid laakiin waxaan ku qasbana hadda inaan asxaabada ehelka iyo qaraabada iyo dhammaan dhegeystayaasha ku xiran bahda Star FM in aan salaamo waliba ugu horeeyo hooyaday macaan Fatuma aabahayga Bakat iyo walaalaheeda dhammaan meel walba ay joogaan ilmaha abtiyaan u ahay kuwa adeerkaan u ahay dhammaantood hawadan ayaan salaan uga marinayaa sidoo kale bahda shaqaalaha aan halkan ka wada shaqeyno sidoo kale ciid wanaagsan ayaan leeyahay u soo horeyso Caisho iyo Maxamed waxay aad u mahadsan tahay ina salaantii anigu ugu darto anigoo kula joogaba aniga waa lagu daray Caisho dhammaanka bilaasha u soo saarin bahasha aniga xitaa waa lagu daray aniga aad iyo aad u mahadsan tahay waxaa laga yaabaa saaxiibo badan inay isdhahayaan dee asxaabtan iyagun bay salaameen ayagu isku mashquulay bal Caisho waxaa moodaa tan iyo markaad bilowdeen barnaamijka dhegeystayaal fara badan in ay qadka soo beegsanayaan balse waxaa moodaa inaad diiradda saaraysin dhanka Facebook xitaa way nagu daaleen dadka qaar oo maaragtay dhanka qadadka telefoonada ay leeyihiin maxaa dadkii helay oo xitaa Maxamed iyo Caisho ayuka isku mashquulay hadda ayaan siinaynaa qadka ku jira dhegeystaha hello assalamu alaykum hello Star FM hello assalamu alaykum ciid wanaagsan soo dhow magacaaga halka joogto Zuleykha Mandera kala soo xiriiraysa magacaaga igu cid mar kale Suleyqa ما شاء الله magacyada soo magacyadii hore ma sha Allah soo dhow Suleyqa ciid wanaagsan mubarak ayaan leeyahay marka hore wanaagsan oo wacanayeen ku leenahay soo dhow waxaa kaloo ciid mubarak leeyahay dhammaan ummadda muslimiinta meel waliba ay ku ciideen sida oo kale walaashay Marian walaalkay Shukri habaryar Cabdiya oo dhankaas Nairobi ku ciideen ciid wanaagsan ayaan leeyahay sida oo kale walaashay Farxiyo walaashay Xaliimo walaalkay Abdaxsiis ciid mubarak ayaan leeyahay sida oo kale waxaan ciid mubarak leeyahay dhammaan ehelada qaraabada halkan lagu soo koobi karin ciid mubarak ayaan leeyahay sida oo kale macallimiinta iskuulkana ciid mubarak ayaan leeyahay and all my classmates na ayakan ciid mubarak ayaan leeyahay iyo saxafiyiinta idaacadda oo kale idinka ugu horeysaan adi iyo Maxamed iyo Mawlid Maxamed Suuriye Cabdullaahi iyo Hodan iyo Farxaan Ali iyo Faisal Jabati dhammaantiin ciid wanaagsan ayaan leeyahay wanaagsan waxaan ku leenahay aad baad u mahadsan tahay leenka xig inta ma siinay Facebook araba inaan raacsiyo maadaama qolaladu ay naga sii tagayaan assalaamu calaykum wa calaykum salaam wa rahmatullahi magacaaga halka joogto magacaygu waa Cabdalla oo jooga Raamuraha Cabdalla aad baan ku soo dhaweynayaa ciid wanaagsan ciid mubaarak laga rabaa ciid wanaagsan ayaan ku leeyahay Caisho xasan xagane adiga iyo dhegeystayaasha qaaliga idaacadda wariyaasha idaacadda Star FM dhammaantood gabdhaha iyo dhalinyarta iyo wiilasha dhammaantood waan salaamayaa magaras Cabdalla waxaa tahay dhegeyste aad markaasi ugu taxan barnaamijyada kala duwan ee idaacadda si gaar ayaan ku leenahay ciid wanaagsan soo dhow yaad hambalyada ciidda u diraysaa adigoo fursadan ka faa'iideysanaya waxaan salaamayaa oon halkan ka salaamayaa ciidan hooyaday naga ooliya hayada kaliil iyo abi cabdiraxmaan farax iyo walaalahay dhammaantood halkan kusoo xisaabi karin iyo Cabbaas Cabdiraxmaan oo aroos ku galay wiilkan dhexdiisa magaalada Sanramo waxaan leeyahay wiil iyo gabar iyo maaragtay caana iyo bashbashi barwaaqo iyo maaragtay arooskaada waaro ayaan leeyahay waxaa kaloo halkan ka salaamayaa asxaabteeda oo kale injineer Boorow Cornel Waraabe Balaak Dhagaxley Cabdisaaq Cabdow iyo Aadan Xasan oo Mooyaale iyo weliba maaragtay waxaan salaamayaa Ahmed Cusmaan Wilow iyo waxaa kaloo salaamayaa Roobla Digow waxaa kaloo halkan ka salaamaya Maxamuud Dhaqane iyo weliba waxaan halkan ka salaamayaa magaratay Cabdi Bishaar Kumaadheer Cabdi Cabde iyo weliba Nuur Kenya waxaa kaloo halkan ka salaamayaa Cumar Jeeri Maxamuud Haajir waxaa kaloo halkan ka salaamayaa Deeqa Baashay waxaa kaloo halkan ka salaamayaa Xaji Maxamed Kumaadheer Xaji Urri waxaa kaloo halkan ka salaamayaa magaratay Maxamed Ali Kumaadheer Qoys waxaa kaloo halkan ka salaamayaa magaratay buulo waxaa kaloo halkan ka salaamayaa Yunis Salaad waxaa kaloo halkan ka salaamayaa Cabdullaahi Caafiya waxaa kaloo halkan ka salaamayaa
علي أجرمه وحتى وكان السلام يا عبدي أحمد وكم عبد عبد كدو واتاي عبد الله والسلام عاشا قاضي واتاي ومسي عبد الله واحد مدلس inuu lagu dul aqriye waa taamaysan yahay Facebook aan rabaa inaan ka gaarsiino saaxiibada qaar waxa kamid ah waan islaamid muslimiinta iyo dhammaan dunida inta ku nool ayuu leeyahay waa Ciise Aadan Mombasa ayuu ku sugan yahay waxa kamid ah dad kale salaamaha soo dirsada Abuukar Axmed oo jooga Johannesburg South Africa wuxuu salaamayaa bahda idaacadda gaar ahaan daadiyaha iyo waliba muslimiinta dhammaan meel walba ay joogaan gaar ahaan waxa salaamaya waqooyi bari Kenya ciid mubaarak ayuu leeyahay magaciigu waa Cabdiraxmaan waxaan joogaa Wajeer waxaan salaamayaa ayuu leeyahay muslimiinta dhammaan ciid wanaagsan sidoo kale waxa kamid dadka soo dirsanaya salaanta Cabdi Malik Kahyo oo jooga dalka South Africa wuxuuna halkan markaasi hambaliyada ciida uga diraya dhammaan muslimiinta meel walba ay joogaan gaar ahaan ummadda Soomaaliyeed wuxuuna markaasi kaloo halkan ka salaamaya dhammaan eheladiisa qaraabadiisa si qaas ah uu salaamaya xaaskiisa qaaliga ah Maryan iyo Saciid oo ku sugan xagar dheere waan idin salaamay ayuu leeyahay Star FM gaar ahaan Caashe iyo Maxamed aad oo mahadsantahay inaguna ka qadna salaantaada midnimada ayaan wada ku sameynaa Maxamed haye Yunus Bashar oo jooga Garowe wuxuu leeyahay ciid mubaarak dhammaan muslimiinta meel walba joogaan wuxuu halkan ka salaamaya hooyo macaan aabay xaaskeyga ayuu leeyahay baba Yasiir oo dhammaan wada jooga leeyahay Wajeer County ismaamulka Wajeer Garowe ayuu joogaa dabcan ما شاء الله إنه سلامنا صاحبة جروب وسجن في ساوث أفريقيا نبغى يصبح لازم قد كأدي وماسين قدك تلفون هذا هلو السلام عليكم هلو رجستها قد كايو كبحي مركز صون نقايا الله يسنا بضح هلو السلام عليكم السلام عليكم عجادا ما قاعد هلك جبتو والله في كنت وجير قسان صبولي لك في دي عيد مبارك عيد وناكسن أوعا هيا إن ما أنت ما دام عيد هاي ما قاعد كلام كوجو يري كلام جرا ما قاعد كلام يري كرتوي جرتا هاي هو ما قاعد عبد الشكري ما شاء الله عبد الشكري ما تلف متشبس هذه اللف في ما تلف متشبس اللف ما إذا هذا ويل كان محمد ما أنت هرب وقعد هاي هرب أنت ما أنت وحكومة بالله هو يا بيلا ولوا ما كبقول يقول دولار واتاي هاي هروس عيا سلام يساعدي وسوكو وقتكو aad inoogu yar waxaan salaamaya Caasha Cagane iyo wiilkaas kula joogo dhamaantiin waan salaamaya waxaan dhagaxil waxaan xagar dheere injineer Borow Cornel Waraaba kulli idaacadda waxa ku xiran kulligood dhamaantood waan salaamaya hooyaday macaan Mobile Ahmed Ali وقام حسين شوري مركب حسين شوري ويل كان عاد جعلي أو أنو يهو إدهان عيدهان مبعيسة فكري يرى وان سلامة يا لما أنتين وأن سلامة يا أنت إذا عاد كل حرن إيد وأنا ورسنا إن اللي وقتها هاي وناكسنا وعنا كلنا هاي نقول ناس إذا قرحت بدل عند برامج كا وقيب وقالتي إن استوديها وحاي نقول الصغنو إمي كاينو تيميد إن ولاشين hodanay ciid wanaagsan Caasho adiga iyo dhammaan dadweynaha meel kasta ay joogaan dhageystayaasha idaacadda Star FM iyo kuwa sida tooska uga daawanaya aaladda social media ee Facebooka waa tahay hodanay waxa ka muuqata ciidda iyo nashaadka iyo farxadda waxaan ku leenahay hodanay maadaama maanta oo dhan waxaa jirtay in subaxii hore dadkii ciidda iyo salaamaha barnaamijka daadinayaad ka mid ahayd anuguna de anigii Maxamed dhanka waxaan ii qaabilsanayn de hilibkii iyo waxyaabo badan de haye maxaa markaa dhihi lahayd adigu dhankaaga waxaan dhihi lahaa dhammaan dhageystayaasha idaacadda Star FM ciid wanaagsan ayaan dhihi lahaa kulley waxaan filayaa hilib in laga wada dhargay meel kasta oo la joogo waxaan leeyahay ciid wanaagsan ciidan ciideeda kale bashbash iyo barwaaqo Allah nagu gaarsiiyo amiin waagata hal fursadan ku siinayaa hodanay yaa salaamaysa si qaas ah waa hal qof oo kaliya marka waalidka laga soo tago hal qof oo kaliya marka waalidka laga soo tago haduu bato jirina ma jiro waxa leeyahay masigana kuma jiro waa jiraay balukaadi waa sheekadan maanta isbaara ay dhigateen isbaara ma waxa sidin kuma yeelay dadkayga dhan waa salaamay dadkayga dhan waa salaamay asxaabta meel kasta ay ku sugan yihiin dhammaan familkayga qaraabadeyda maxaa la dhihi jiray dhammaan asxaabta dhageystayaasha
dhammaan ummadda Soomaaliyeed oo salaamaya taas waad ka gambatay waan ku ogolahay diyaar waay laakiin waxaan ku weydiin lahaa su'aal hadeetay oo maxamed weydiiyo aniga way igu adkaatay maxamed wuxuu yiri masalan oo kale maxamed iyo adiga gurigooda noo shaheen maanta ciid bay ahayd hilibkii gurigii le maxamed baa ku waa wada dhamaystay oo hal xabba kama usan reebin adigoo xanaaqsan oo sidaas hilibkii aad jecleed inaad cunto maxamed maxaad ku oran lahayd adigoo xanaaqsan si xanaaq u oranayo jiliin yar baan kaa rabnaa adigoo xanaaqsan macnaha dhegeysta soo xanaaqay macnaha ayagan jiliinkan u wadnaay anoo jooga miyaa mise anoo maqan adoo maqan wax walba dhamay marka baad laatay markaad timid wax isagoo oolin wixiina waxa lagu yiri maxamed baa u taliyay sheekada هاي ما حسب الله وداوي لا استديلا عاشو waxaan u malayaa hadal ku jirta dadka markay xanaaqaan gacmaha ka hadlay ما الله وداوي يا ديلا هذا عيد ونكسر عيد ونكسر هيا واتهي صاحبيال barnaamijkaynu wali ku guda jirnaaye intaan qadadka telefoonada iyo Facebook maxamed oo siinin waxaan jeclahay qadar adeeg barnaamijkayna soo qabto oo isaguna kamid ah barnaamijka waa adeegan ay dadku inta badan markaa isticmaalaan wadankan ku nool shirkadda isgaarsiinta Safaricom ayaa doonaysa inay macaamiisheeda abaalmariso maadaama ay adeegsadaan hanaanka lacagaha la isugu gudbiyo ee M-Pesa ku dir lacagtaada ha lagugu soo diro M-Pesa kadib guulayso oo hel abaalmarin yaa ka fiican shirkadda Safaricom waxay ku leedahay adeega maishan M-Pesa to waxa kaloo meesha ka marnayn abaalmarino kale oo macaamiisha loogu talagalay qof walba waa uu guuleysanayaa marka uu adeegsado M-Pesa waa guuleystay waxaana lagu guuleysanayaa guri oo ay kugu talagashay shirkadda isgaarsiinta Safaricom gurigu waxa uu ku yaalaa magaalada Nairobi maishan M-Pesa noloshu waa M-Pesa qof walbana waa guuleystay maantaba ku dir lacag M-Pesa oo adigana ha lagugu soo diro ku bixi biilka M-Pesa sida korontada biyaha supermarketka iyo wixii la mid ah sidoo kale ku xawil lacagtaada bangigaada oo ku soo xawila M-Pesa balka waran adigoo gurigaaga joogo haddaad iibsato shay aad u baahan tahay haddii ay noqon lahayd wax walba oo adiga aad u baahatay oo kaa maqan waxaad ku iibsan kartaa oo lacagna jeebka ay kugu jirin telefoonkaaga oo M-Pesa ku samaysan oo aad lacagtaasi ku diri kartaa dhegeyste taasi waa ay ku xaqiijisay Safaricom maishan M-Pesa waa nolosha M-Pesa qof walbana waa uu guuleysanayaa haddaba intaasaan ku dhaafno qadarka adeega barnaamijka ah maxamed cashoy dhegeystayaasha qadka dhanka Facebook nagala soo xiriira ayaa fariimahoodii halkaan maanta dhan u akrinayna mid kamid wuxuu leeyahay waa cabdiqaadir cabdi sharafaad wuxuu leeyahay halkan waxaan ka salaamay xaaskayga mustaqbalka oo weli aan garanaynin ayaan hambali ciida halkan ugu diraya ayuu leeyahay weli ma garanayo ayuu leeyahay dhegeystaha والله وشاك كلا يدنا weli ma garanayo wuxuu noqonayaa waa shakhsigii ugu horeeyay oo isbiimeeyay xaaskiisa mustaqbalka oo garanaynin oo hawada ka salaamo gabadha ama loo ala jirta ama geela la jirta ama dukaan hakato ama gurigeeda jirta ama calal hooyada ku jirta uu salaamaya wiilkan adiga ku jirta xataa waa macquul uu salaamaya hadii ma garanayo haduu dhahay ka waran yaa garanayo isku weysiiya cid garanaysa malahan waxaan leenahay allah kuu sahlo dhanka qadadka telefoonada wallahi badda ku jira xawaaj u tumanaysaa hello Star FM hello Star FM السلام عليكم وعليكم السلام عيد مبارك قلب ونكستان مقعاق يوم ماشاد جوكتي عايشة عادل محمد وكا قادني صلاة ودنا أصلا مرسي هل كان يدك السلام يسا ولا لا مريم جيت بلد مريم كزودو برنامجك ولا لا عيد ونكستان دمال تسجينا عيد ونكستان يسمار يا هيا waxaan salaamayaa dhegeystayaasha idaacadda Safar Nuur iyo ayaa taqaantii saaradiya inta cadii dhegeystayaal dhammaan shirkadaha xalliyeedka dhegeystayaasha iyo asxaabtiisa shirkadayga هيا waxaan salaamayaa hooyadayda iyo qaaliga ah ee dalka Ingiriiska oo macaanta waxaan leeyahay ciid wanaagsan waxaan kaloo salaamayaa walaalaha idinkana waxaan leeyahay ciid wanaagsan inta ciid ilaahay noo jecel آمين آمين ونكسنا وعن مريم هدي جلعة دنكا يا قدرك تليفون هذا هلو السلام عليكم
hello Star FM. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قلب وناكسن مقع جيلك جوجتو. واقع محاي قدك إيه كبحث ديستاسي. قلتي إيه قبل برامج كبسطقينا. هلا. hello السلام عليكم. عليكم السلام ولا شيء عشاء أجني. قلب وناكسن عيد وناكسن مالين وناكسن سو دو وذا وناكسن وقروح بدن. أنت إذن كذا ما أنت عيد وناكسن أيضا لا وعن محمد وايه. وعني ما تقول سلامتي عيد بهود الجوم مرينا يسودو بانكوليا ضد مر سلامتي. ما شاء الله رنتوا كم قناة عندي لا سوري وكحماي دمان رت أنت سلامت وحن لا سلام الله الله وإنك قال ما دام إن اللي سنين. واقفتي. رنت الدقاب لماشان كم قلا ومرينا سجن كان كسلام هاي محمد كل دمان ورياش. waad mahadsantahay yoro soco hore haddaan socdarta salaanta wariyaasha kale oo maqan idinkeena kugu dhiibo ugu horeeya maxamed cali mideeda kale ehela iyo asxaab iyo qaraabo way jiraan halkaanaan salaan qaalahooda uga marinayaa waa gartay waxaan ka salaam waa tahay wada salaantaada haye halkan waxaan kaloo ka salaamayaa horta hooyaday macaan maraykankay ku sugan tahay iyada naftarkeeda halkan ma joogto iyo walaalahayga hooyadii asli maxamuud ayagana halkaan ka salaamay maadaama hal aan xisaabi karin hadda waqtigan uu yar yahay mideeda kale waxaan salaamayaa horta inta kale oo aabahayga u dhalay maxamed cabdulla isagan halkaan ayagana ku sugan dhanka Nairobi waxaan ka salaamayaa walaalkayga Bashiir Maxamed isaga iyo xaaskiisa ciyaalkiisa eedaday aabahii la dhalatay Arfaan Cabdulla iyo ilmaheeda iyo saygeeda halkaan ka salaamayaa dhanka iyo meel junction kala waxaan ka salaamayaa walaalkayga Cabdi Cabdullaahi Nuur isagana salaan qaaliyahood inta uga marnaaya dhanka iyo runta iyo balad waxa aan baryo ka leeyahay madaxna taajir arabkeeda iyo seegeeda waxaan leeyahay ku isku waara ilaahayna ka dhigaan leeyahay halkan aan baryo uga dira qaali amiin salaamullahi idinkan iid wanaagsan wacanay waad maasantahay waqtigu waa gabagabo haye adna su'aasha wali aan ku weydiiyo ku taalaay هذا سؤاشي دي مي بحثت مو بحثنا وحياة ما حد يودي هذا كسو عيد ربنا وين واحد قاس العاشر ما تقصلام يسايفي صوتان هاي وصلانتي دمان هلد وصلانتي ما تيا ما صخري إن وما صنتها محمدو إن سؤاش هو سؤال مهم دقيست إن يسوون السلام ضل بضي قف وسلامي أنا قنا إن واحد يودي زي سلام marka haddii aan sheekada isla haysiye ka waran sheekada ma garanaya leedahay maya waa garanayaa baxar hay gelinine baxar laguma gelinahay haddii hore aan u socona dee waqtiga ayaan ugu socdo dhegeystayaasha haddii aan fursad aan siino waa mahadsantahay maxamed waa kaaga mahad celinayaa saaxiibada facebookana waan siin doonaa intaanu ka gaarno waxaan jeclahay qadar adeega barnaamijka inaan kusoo gabagabeeyo adeega shirkadda isgaarsiinta Safaricom waxay doonaysaa inay macaamiisheedu markaasi abaalmariso maadaama ay adeegsadaan hanaanka lacagaha la isugu gudbiyo M-Pesa oo cid walba ay taqaano adeegaasi ku dir ama lagugu soo diro M-Pesada waad guulaysanaysaa oo waxaad helaysaa abaalmarin kala duwan waxaa jiro abaalmarintii ugu weyn oo ah guri 2 qol ah oo ku yaala magaalada Nairobi maishaana M-Pesa to waxaa kaloo meesha ka marneen abaalmarino kale oo macaamiisha loogu talagalay qof kasta waa guulaysta markuu adeegsado adeega M-Pesa maishaana M-Pesa noloshu waa M-Pesa qof walbana waa guulayste maanta ku dir lacagta M-Pesa oo adiga oo lagugu soo diro ku bixi biilka M-Pesa sida korontada biyaha adeega dukaanka iyo wixii la mid ah sidoo kale waxaa markaasi ku xawili kartaa lacagta bankigaada oo aad ku soo xawilin kartaa M-Pesa bal ka waran adigoo gurigaaga jooga haddaad iibsato caanaha geela oo shaaha aad ku darsan lahayd ama aad cabi lahayd dhagaystaha ka walwalin haddii ay lacag gacanta kugu jirin waxaad markaa kuu joogto M-Pesa oo ah mid markaasi kuu fududaynaysa in si fudud aad lacagtii caanaha geel ku bixin karto oo aad ugu diri karto dukaankaasi aad ka iibsatay caanaha geel adeegaas intaasaan ku dhaafin dhagaystayaal ciid wanaagsan ayaan gabigeena idin leenahay haddii hal fariina Facebook ka timid haddii aan dhegeystaha u dulmaro waxuu leeyahay oo Cabdiraxmaan Bilibili oo mar kale soo laabtay saaxiibta ila soo hadashay yiri waxa igu tiri fursad salaan ayaad heshay maxaad ii soo salaami weysay marka waxaan leeyahay waan salaamayaa waxaan leeyahay ciid wanaagsan magaceedana waa Faaduma Cali waa dhegeystaha ugu horeeya magacan aad u soo shaxbixiyay واتهاي waa ka gaarsiinayna salaantan haddii ay maqlayso Faadimo dhegeystayaasha aad iyo aad u fara badan dhanka Facebook iyo dhanka telefoonada caasho waqtigiina cariiri ayuu nagu yahay
maanta waa maalin aad u weyn waxaan filaynaa dhegeystayaasha maanta inay ciidaan waxaa kaloo meesha ka mara inay cibaadaysteen inay sadaqada baxsadeen in nabadda iyo wax badan ay maanta aad ugu taxgeliyeen oo maanta lama sheegin in canug dhumay ma aqaan haddii meelo kale ay jiraan laakiin maanta nairobi aad iyo aad looga dadaalay intaana gabagabaynin waxaan jeclahay inaan salaan qiimo badan hawada u mariyo wariyaasha Star FM ee Muqdisho oo aan leeyahay ciid wanaagsan gabigiina oo ugu horeeyo maxamed cabdiqaadir silfa wariyana Star FM Muqdisho inooga soo warama waxaan ku leeyahay ciid wanaagsan ku ciid caafimaad iyo baraare farxaan calina wuxuu leeyahay salaan baan u marinayaa dhegeystayaasha dhammaan Soomaaliga ku hadla iyo Swahiliga waa salaamaya maanta Swahiliga farxaan waxaan ku leenahay inaguna ciid wanaagsan يوسفنا وحنا ليه واحد ما جرى ترى برنامج كان سوق وقتي أيام وقتي بقى جراسيا ما كانوا نقارينا عشوا إن شاء الله عيدان عيدا كلو إلهي بش برواقي عفمادي عمر غير إلها نوسي آمين آمين وادعي معها أدي هذا الدعاء كل إله بدي وحنا لنا هاي قبي نقول نجعل برنامجكم مرة مان لكن قيبتن وعيسو مكاسي كومتي قيبتي محش قيب كلا دي من وعاو فيصل جباتي بايدين هراي waxaan leenahay Faisal oo adiguna qaybtaada iyo ciid wanaagsan Yusuf ayaa farsameynayay aniga iyo Maxamed barnaamijka waa idin socodsiinaynay waxaan idin leenahay gabigiina saaxiibada Facebook iyo kuwa sida tooska FMK iyo website-ka bay nagala socda nabadgelyo ciid wanaagsan xarunta dhaqan celiska ee Pride Future Treatment Center tagad weeye